hanaanka lacag bixinta midaysan waa barnaamij uu soo kordhiyay bangiga dhexe oo isticmaalayaan bangiyada Soomaaliyeed sharciyada ka haysta bangiga dhexe 13 ah waa barnaamij suurta gelinaya bangiyada Soomaaliyeed inay isku diraan lacagaha iyadoo si sahlan isugu diri kara oo aan wax caqabad ah laga kulmin marka barnaamijkan waa barnaamij fududeeyay ama suurta geliyay in bangiyada si sahlan ay wada hadlaan lacag isugu dirsan is-aaminaan marka arrinkaas waa arrin aad loogu baahnaa muddo dheer la sugayay hirgalayna hadda laguna faani karo barnaamijkan muddo dheer ayaa laga soo shaqeynayay oo bangiga dhexe iyo bangiyada ay soo wadeen laakiin waqtiga la bilaabay oo Ilaahay noo suurta geliyay waxa inaan bilaawno waa bishii 7 sanadkii 2021 markaas ay suurta gashay in la bilaabo barnaamijkan haddana wuxuu marayaa heer la fahmay oo bangiyada dhan ay isticmaalaan oo aad looga faa'iideysan la dareemay marka barnaamijkan waa wuxuu jira hadda muddo ku dhow sanad faa'iideysana waa la dareemay durbaba barnaamijkan dadweynaha faa'iido aad u weyn ayaa ugu jirta haddii la fahmana xaqiiqatan waa barnaamij aan isleeyahay wuxuu dabooli karaa baahiyo badan oo dadka ay qabaan haddii aan hal iyo laba ku xuso faa'iidooyinka ugu jira dadweynaha waxa ka mid ah in qofka waqtigiisa qaaliga ah uu ka faa'iideysan karo oo hal bangi uu account ku leeyahay intuu tago uu u diri karo bangiyada kale isagoo aan la kulmin wax caqabado ah si sahlan lacagtiisa muddo kooban oo waqti yar ah ay ku tagi karto xisaabtii meeshii kale uga furneed marka barnaamijkan waxa kale oo hadana kamid ah oo aad qofka bini'aadamka naftiisa waa qaali wuxuu badbaadiyay ama uu badbaadinaya nafta bini'aadamka ah oo lacagihii inta gacanta lagu qaado jidka la maro khatarahaas ka imaan jiray iyo isagana badbaadinaya nafta bini'aadamka waa aad in loo ilaaliyo u baahan tahay marka taas nafta ah waa waxa ugu horeeya qofka jiritaankiisii inuu jiro waxa kale oo saddexaad oo jira iyadana in lacagtii la qaaday oo bangi laga qaaday oo kii kale la geeyay inuu intuu iska fiiriyo kugu soo celiyo lacagtii qayb kamid ah ama qaybteeda badan kira way jeexan tahay oo dib aad ugu soo laabato bangigii hore aad ka qaaday oo mar kale aad lacagtii hadana wadada la marto oo 3-4 jeer maanta waqtigaagana ku dhumo amaankaaga khatar ku galo hore gadaal u socoto marka arrinkaas waxaan isleeyahay intaas aan ka xusi karaa faa'iidooyin badan ayaa jira haddii la sii fahmana barnaamijkan dadka faa'iido ugu jirto intaas hadda aan xusay iyo in kaleba way ugu jirtaa ka faa'iidi karaan isleeyahay hirgelinta hanaankan kaalinta ay ku leeyihiin bangiyada iyaga udub dhaxaad u ah iyaga hirgeliya lacagta waxa haya waa bangiyada oo dadka u haya iyaga si fudud u kala wareejiya bangiga dhexe barnaamijku hirgeliyay laakiin waxa isticmaalaya oo dadweynaha lacagaha u kala xawilaya u kala wareejinaya waa bangiyada la'aantoodna barnaamijkan ma hirgeli karo marka bangiyadan sida ay u isticmaalaan ay ku xiran tahay shaqeynta barnaamijkan haddana aad ayay u isticmaalaan muddo sanad ka yar ayaa la isticmaalayay lacagaha ilaa hadda marin waxay ku dhow yihiin 1 bilyan marka aaminaadaas bangiyada is aamineen oo dadkii aaminaada is aamineen horumarinta dalkan way ka qayb qaadanaysaa barnaamijyada soo socdana waxay ku dhiiranaan doonaan dadka iyo bangiyada iyo systemka dhanba in lagu wada dhiirado aad iyo aad ayaa faa'iidaas dadkan u wada qabaa fariinta aan rabo inaan la wadaago dadweynaha waxay tahay in barnaamijkan iyaga loo hirgeliyay ay tahay iyaga inay isticmaalaan naftooda ku badbaadiyaan ganacsigooda ku horumariyaan barnaamijkan waxaan ugu baaqayaa dadweynaha inay tijaabiyaan iyaga arki doona faa'iidada dadkii tijaabiyay faa'iidoodii way soo gudbiyaan waa aragnay annaga ka bangi ahaanna waan aragnay faa'iidada ku jirta dadweynaha ugu jirtana way arkeen marka waxaan ugu baaqayaa dadweynaha guud in si guud loo isticmaalo lagana faa'iideysto barnaamijkan waa barnaamij horumarka dalka qayb weyn ka qaadanaya